ما لا سلعسني وهايو واحد دبته كده عيسى وهايو waxaan tagay maxaa la yiraahdaa inan baan anigu la joogay oo ku soo degay inanta aan la joogay washmankeeda gabadhii uu qabay ayaa foolatay anagoo la joognaa gabadhii baan u deedna dhakhtarkii geynay dhakhtarkii markaan u geynay can you imagine gabadhii oo foolanaysa in loo waayay wax lagaga fooliyo in naagihii neerasta ee meesha joogay ay yiraahdeen gloves xitaa meesha ma taalo marka dhibaatooyin badan baan ku soo aragnay wadankii waxaanu ku soo aragnay hooyooyin yar yar oo caruur yar haysta oo meel ku dhibaataysan marka waxa aan ururkayagu qabanayaa in aanu caawino dumarka especially xagga dhaqaatiirta aanu ka caawino hadii ilaahay waxna la qabto aad baan ifraaxi kugu mahadcelinayaa daawadayaal insha Allah tacaala barnaamij gaar ah oo maanta kaga hadlaynay 8 March iyo waxay xabaarsan tahay imkana waxaanu galeynaa insha Allah tacaala sida Muqdisho looga dabaaldegay maalintii caalamiga ahayd 8 of March ama 8 of March loo yaqaano insha Allah tacaala daawasho wacan marzo marzo daawadayaal saad dhammaantiin ba u daawanaysaan meesha quruxda badan leh waa magaalada Muqdisho iyo sida looga dabaaldegay maalinta 8 March dhammaantiin ba xus mudan in lagu mutaysan Soomaaliya saa looga dabaaldegay wadanka aragga gaar ahaan Muqdisho waris wada aragtay barnaamijka quruxda badnaa ee laga dabaaldegay magaalada Muqdisho saad u aragtaa walaal hadda aad waxaad moodayna dhex joogo ma sha Allah aduna ifraaxay xabar igu dambeysay waxa igu dambeysay 1990 horaantiisi ma sha Allah igu dambeysay aduna saad u aragtaa walaal aniguna wallahi aad baan ugu faraxsanahay sida dumarka loogu dabaaldegayo waan ku guulinayaa dumarka Soomaaliyeed meel kasta joogaanba kaalinta halka ka wada aniguna Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan uga baryayaa sida ay u dabaaldegeen uu Ilaahay nabadda iyo quruxda u dhaliyo shacabka Soomaaliyeed ee dhibaatadu in badan 20 sano ku soo gabsatay insha Allah ta'ala ama dhamaantiin aamin baad oranaysan imikana daawadayaal waxaan daawasiinaya video clip lagu soo qabtay Jamhuuriyadda Soomaaliland oo iyadana looga dabaaldegay maalinta 8 of March oo iyadana xus mudan leh insha Allah ta'ala daawasho maanta waxaan halkan isugu nimi waxa weeye inaynu ka hadalno sida loo horumarinayo dumarka reer baadiyaha ah ama dumarka reer miyiga iyo dumarka tuulooyinka jooga dumarka beeralayda iyo kuwa xoolo dhaqatada iyo beeralayda isugu jira waxaynu maanta wada ogsoonahay runtii waxaynu ogsoonahay waa laga wada hadlay oo madaxdii ugu horeysay oo dhan baa ka hadashay siyaasadda waxaynu halkaa ku soo gaadhnay waxa weeyaan ama xisbiyada maanta jira iyo kuwa soo socdaba wax weyn cod dumar bay ku yimaadeen laakiin haddana sida codka ay u bixiyaan ugumay gacan bixin hablihii reer Soomaaliland ee golayaasha qaranka iska soo sharaxay waxaanu rajaynaynaa sanadkan inay habluhu
codkooda maanta la doontaan gabadha haddii aan la yidhaahdo madaxweynaha isaga insha allah kootadiisi dhaqsa ah baynu uga heli doonaa golayaasha xisbiyada waxaan ku dardaarmayaa inay fursad siiyaan daawadayaal halka kala socoteen barnaamijkan waa Royal 24 anigu waa maalkaysa idin daadinaya dabaaldagaasna waxa looga dabaaldegay Somaliland insha Allah taala idan waxaan Ilaahay uga rajeynayaa peaceful iyo nolol fiican ku noolaato bal hadaba daawadayaal maanta barnaamijkan 8 of March waxaan ku falaaqeynaa taariikhdu xambaarsan yahay barnaamijkan waxay kala qayb qaadanaysaa wariso xoog waranka iyo ifraax insha Allah taala saad u aragtaan labadiinba والله واحد meel walba laga dabaaldegay farxadu way jirtaa yani inako quramaha adduun oo dhan laga dabaaldegay maanta aad baan ugu faraxsan inay Soomaalida gabdhaha Soomaalida kacaan yiraahaan waxaan u dabaaldegaynaa maalinteedii aad bay u qurux badan sadartay farxadna walaalo anigu laftigaygu wallahi aad baan ugu faraxsanahay waa guul la gaaray inaka oo maalintii dumarka u dabaaldegayna waa guul la gaaray sidaan inaynu ka sii wadno u baan rabnaa insha Allah biidmillah karim ma sha Allah ilaahayna garab qabto dumarka oo dhan amiin ya rabbil alamin aniguna dhamaan hooyooyinka Soomaaliyeed ee daawanaya maanta barnaamijkan gaarka aan kaga hadlaynaa 8 of March oo taariikh dheer noole dhamaantiin ba Ilaahay waxaan ka rajaynayaa caafimaad qab iyo daawasho wanaagsan imikana daawadayaal imikana waxaan insha Allah u galeynaa halkii sidii looga dabaaldegay garowe insha Allah taala ee daawasho wacan يا مروين سلام كدي waxaan maanta munaasabada 8 Maarso ee 2012 ka dhacaysa daafaha dunida oo dhan oo Soomaaliya ka mid tahay iyo dawladda Puntland oo saakay ay si siman uga bilaabatay 8 gobol ee Puntland magaalooyinkooda ay ka mid yihiin garowe caasimada Puntland magaalada Qardho Gaalkacyo Boocame Buuroodle Dhahar Baran iyo Boosaaso waxaa sanadkan 2012 aan halkudhig uga dhignay ku xiridda gabdhaha mustaqbalka wanaagsan taas oo macnaha ka dambeeya ay tahay in gabdhaha loogula dadaalo inay helaan mustaqbal xor ka ah shaqaaqa dhammaanteed lagu ixtiraamo xuquuqaadka loo siman yahay ee dhinacyada dhaqan dhaqaale bulsho iyo siyaasad inta ay bishu tahay 8 Maarso waxa sharaf weyn inoo ah inaynu halka kan ku xusno munaasabada iyada ah oo adduun weynuhu u asteeyay inay noqoto maalinta haweenweynaha adduunka waxaan idin leeyahay amaan u soo gudbinayaa anoo magaca madaxweynaha iyo kaygaba ku hadlaya hambalyo ballaaran oo aan u soo gudbinayo adduun weynaha haweenka ku nool gaar ahaan haweenweynaha ummadda Soomaaliyeed ee ku kala nool gobolada ay Soomaaliya ka kooban tahay daawadayaal halkaasna waxaa farxadii maalintii 8 of March si looga soo dhaweeyay garowe insha Allah taala waxaan daawanayaa daawadayaasha qiimaha dhan walba inaan ka raali galiyo warisay waad aragtaa farxadda garowe maanta laga soo daayay si dadku dumarku u dabaaldegayaan calankii ugu dabaaldegayaan farxad waxba kama maqnaba dadka halkan joogana way cabanayaan kuwii Soomaaliya joogana way raaxaysanayaan Ilaahay baan ku dhashay labada cabanaya innaka cabashadu inoo egtaa innaka cabashadu badan saad u aragtaa farxadda wal maanta cajiibka caalamiga anigu garowe waxaan tagay shir baan u tagay dawlad goboleedka Puntland marka aad baan ugu farxay runtii inaan mar labaad arko ma sha Allah waliba gabadha wasiirka ah imika hadaysa Caasha qof aad u qiimo badan runtii ah dumarnimadana aad u ixtiraamta oo qof aad u qiimo badan ah aad baan ugu gabaabinayaa yacni dumarka sida u soo saarto baan aad u xasuustay xasuus baa dib ugu soo noqotay aad baan ugu mahadcelinaa wasiiradda ifraaxay saad waragtaa walaaduna haweenka meel walba maanta way ka dabaaldegayeen garowe Somaliland Muqdisho iyo qaar kale badan oo soo socda insha Allah taala anigu sidan horeba u sheegay farxadani waa farxad aad iyo aad u qiimo iyo qaayo badan nacam anigu markaan arko dumarka had iyo goor waxaan jecelahay dumarku in ay had iyo goor sameeyaan horumar inay sameeyaan baan jecelahay waxaan jecelahay dumarka oo ku goobaabinaya dumarka Soomaaliyeed meel kasta joogaanba qofka ibn aadanku waa inuu marka hore naftiisa aaminsanaado waxaan idin leeyahay naftiina aaminsanaada dadaala inta aad dadaali kartaan wixii aad doonaysaan inaad sameysaan waad sameyn kartaan ee horumara insha Allah taala anakuna waxaan leenahay dhamaan
haweenka Soomaaliyeed af Soomaali ku abtirsada gaar ahaan guud ahaan kuwa Soomaaliya jooga ilaahay meeshina idin ku xafido caafimaad iyo bash barwaaqo idin geeyo ilaahay anagana ciidii nagu celiyo idin la ciidano sanadkan aan joogno qurbahan joogno London maanta daawadayaal meelo badan baa laga dabaaldegaya oo maalinta 8 of March looga dabaaldegaya wadana badan baa laga dabaaldegaya islaamiga maalintan waa maalin taariikhi ah xasuus bayna gashay in badan baa dumarku ku jiraan isticmaar laakiin imika waa laga baxo dumarku way tashadeen imikana daawadayaal insha Allah taala waxaan tusayaa sidii looga dabaaldegay buuhoodle ee daawasho waxaan insha Allah taala waxaa farxadii ah oo macreereynii ah oo mudnaan leh sida sharafta leh ee aan maxay tahay isugu soo dubaridnay ee ay noogu suurtowday in aanu samaysano ka qayb qaadano adduun weynaha waxay higsanayaan ee ah kay kow ka tahay 8 Maarso waxaan taageerayaa oo aan gacan siinayaa meel kasta oo maanta looga dabaaldegayo 8 Maarso waxaan salaamayaa oo kale ururka haweenka Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan maanta oo ah maalintoodii 8 Maarso aad iyo aad baan u salaamayaa aad baan u faraxsanahay maanta iyadoo aan aad iyo aad u faraxsanahay oo aan calankan aftarka aan u soo xidhanay maanta waa maalin weyn aan la kala maqnaan maanta waa maalin weyn aan la kala maqnaan waa bishii Maarso manaheedu wuxuu ahaa macaaney waa bishii magaca weyn lahay macaaney waa bishii loo mashxaaradii daawadayaal halka ka daawanaysaan waa TV-ga caalamiga Royal maanta waxaan ku wada jirnaa maalintii caalamiga ah 8 of March ee loo dabaaldegay adduunka daafiisa halka daawateen waxay buuhoodle dhammaan haweenka Soomaaliyeed meel badunida jooga ee ka soo jeeda goboladaas oo dhan waan salaamay salaan diiran ilaahay waxaan uga baryaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed ku abtirstaaf Soomaaligana inay bashbash barwaaqo ku noolaadaan sanadka dambe aan kula ciidno wadankii ciidii Soomaaliya daawadayaal mar walba wada garanaysaan mar walba waxaan isku dayaa inuu amaalkaysa inaan barnaamijyo tayo idin soo taaro waliba haweenkan ay la socdaan horumarkay ku jiraan oo la ogaado haweenka Soomaaliyeed ee Soomaaliya ku hadla inay cid walba ku dhaafi karaan xitaa meel walba gaari karaan rag la tartami karaan daawadayaal wali waxaan ku guda jirnaa barnaamijkii gaarka 8 of March oo maanta maalin taariikhi oo caalami oo xusle oo dhammaantiin baan ku wada faraxsanahay hadana hooyooyinka Soomaaliyeed ee meel walba dunida jooga maantana barnaamijka waxay kala qayb qaadanaysaa wariso dhammaantiin wada garanaysaan oo xoog waran iyo ifraax iyaduna xoog waran oo ka sheekeynaysa maanta of March oo hooyooyin Soomaaliyeed oo wadankan UK jooga oo maanta barnaamijka kala qayb qaato aad iyo aad ugu mahad celinayo imikana daawadayaal wali waxaan ku guda jirnaa barnaamijkeeni waxaanu kala telefoonada khadka idin furay insha Allah taala waxaan doonayaa dhammaan gabdhaha Soomaaliyeed iyo ragga Soomaaliyeed af Soomaali ku hadla meel walba dunida ka soo jeedeen inay nagala qayb qaataan barnaamijkan maanta quruxda badan qiimada badan ee aan idin soo xuray anoo amaalkaysa marka khadka telefoonada idin furaya qofkii soo hadlaya magaciisa ku bilaabo iyo maalintan sidoo arkay taariikhiga ee quruxda badan ee xusna dhabaantiinba marka insha Allah taala khadka ugu horeeya maanta nasiibka yeeshay halo assalaamu calaykum daawadayaal saa wada garanaysaan mar walba haweenka Soomaaliyeed meel walba dunida ha joogeen anigu waxaan ku tiriyaa amaal ahaan kuwa ugu horeeya ee ugu sareeya waayo haweenku waa wax walba wax qabadka adduunka oo dhan ka haya imikana insha Allah taala waxaan ka rajaynayaa haweenka Soomaaliyeed inay madaxtooyo isu sharaxaan waayo dumarkii raggii dhibaatadii way joojin waayeen marka waxaan doonayaa anigu haweenka Soomaaliyeed mar walba aan power ka saara inay ka kacaan ay noqdaan kuwa ugu horeeya meel walba dunida qabsada waayo wasiirada yeelan kalna madax baynu yeelan kalna nabadda ay ka dhaliya raggii dhibaatun bay wadaan wadankiina wuu daglayahay meel walba qiiq ba ka taagan laakiin haweenku markasta waxay isku dayaan inay nabadda ka shaqeeyaan waa hooyo mar waxbay dhashay marka insha Allah taala khadka telefoonka qofka ugu nasiibka badan leh maanta barnaamijkan igala qayb qaadanaya quruxda badan assalaamu calaykum calaykum salaam warahmatullahi wabarakaatuh walaalo waan ku salaamay macaani ku soo dhaw barnaamijkan gaarka aan ka hadlayno maalinta 8 of March walaal magacaaga meeshaad ka hadlaysid walaal magacaygu waa deeq waxaan ka soo hadlaya shafiil marka waxaan kugu soo dhaweynaa ku soo birtaan Royal TV anaga marka hore ahayn daawadayaashaada sida aad ka wala socdo barnaamijka doorka haweenka iyo waxtarka dumarka hambalyadaan ku leenahay barnaamijkaaga soo rogaleysay aad baan walaalo deeqay ku salaamay saad u aragtay laakiin maanta maalintan caalamiga walaalo aan u dabaaldegin ee tafar walaalo maanta ma soo koobi karayo farxad aad u weyn baan dareemayaa mar haday tahay maalin gaar ah dumarku iska leeyihiin
waxaan salaamaya dhammaanta hooyooyinka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan صح waxaan salaamaya hooyada oo ku nool wadanka Kimbrida Soomaaliya magaalada Hargeysa ايه ما شاء الله iyo dhammaan hooyooyinka Soomaaliyeed oo dhan aad baan aniguna deeqa aad baan deeqay ku salaamaya walaalo codkaagana maqlay aad baan kugu mahadcelinayaa waa taasna daawada